بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال أمضى الصوماليات ملك استود الدونك كجوبتان وحاني نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما أنت وحكد عضي مقالة مقدشو caasimada jamhuuriyadda Soomaaliya arrin aad u culus oo taariikhi ah oo ka jawaabaysay dhacdada ummadda Soomaaliyeed isbedelka ay rabaan iyo horumarka ay rabaan iyo deganaanshaha ay rabaan iyo cadaaladda iyo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda shacbi weynaha Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jira intuba ay rabaan ka jawaabaysay walaalayaal waxaan jeclahay inaan 5 meelood iska taago arrinta ka dhacday caasimadda Soomaaliya Muqdisho horta marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan tahniyad u diro kal iyo laaba inaan u diro shacbiga aan walaalka nahay ee Soomaalida ah oo aan walaal ku nahay diin iyo af iyo dhaqan iyo juqraafi iyo taariikh iyo mustaqbalba ummadda weyn ee Soomaaliyeed ee sharafta gaar ah kule adduunka aanu ku noolahay iyaan jecelahay inaan tahniyad aan uga diro magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo aan ag deganahay gobolka Quebec magaalo yar oo magaceeda la dhaho Gatineau tahniyada kadib walaalayaal waxaan jeclahay inaan ilaawin inaan tahniyadeeyo madaxweynaha ay ka dhamaatay taladu Xasan Sheekh sida quruxda badan ee uu aqbalay in uu laga adkaaday hasiimada uu qaatay sida quruxda badan ee uu u tahniyadeeyay ninkii ka badiyay sida quruxda badan oo haddana u ogolaaday in ayna sii socon kadib marka uu arkay isbedelku dhaka uu u sii jeestay oo uu fahmay in taariikhdu ay leedahay bilow iyo dhamaad isagana waxaan ku leeyahay mabruuk waxbaad soo qabatay waxna way ku dhaafeen ummadda Soomaaliyeedna waxay rabtay qof aan adiga ahayn markaas baad aqbashay waxaan kaloo tahniyadeynayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo isaguna bisayl siyaasadeed muujiyay oo halka dambe kaga hadli doono waxa uu keenay bisaylkaas iyo halka uu ka yimid marka isagana baarlamaanka Soomaaliyeed ee haddana aan ahayn baarlamaan si dimuqraadiya loo soo doortay laakiin waxa loo soo doortay si dimuqraadiyo istisnaa'iya si gaar ah ayaa loo soo doortay marka isagana waxaan leeyahay baarlamaanka mabruuk iyo tahniyad gaar ayuu isaguna mudan yahay waxaa tahniyad gaara mudan kooxda iyo guddiga aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee uu madaxa ka ahaa ee ka shaqeynaysay doorashada sidii ugu dhici lahayd si sharafti leh oo qurux badan oo wanaagsan iyo kuna tahniyad bay leeyihiin waxaa tahniyad isaguna leh madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo isaguna muujinayay raganimo geesinimo iyo dhadhaxaadnimo aad u qurux badan isagana waxa uu leeyahay salaan iyo tahniyad gaara waxaa tahniyadaas mid la mid leh culimada Soomaaliyeed sida Sheekh Maxamed Idriis iyo culimada kale ee aan soo koobi karin ee muddadii farabadnayd ee ugu dambeysay wacdiga aqli furka iyo la garab joogtay hadalka aan kala joogsanayn madaxda iyo baarlamaanka Soomaalidu si ay u noqdaan dad dariiqii iyo jidkii toosnaa mara oo doorta ninka maanta u xaq mudan u qalma doorta iyakana culimadaas iyo aqoon-yahanka iyo fanaaniinta iyo dadka dhammaan oo dhan waxaa leeyahay waa tahniyad gaara iyo kuna leeyahay intaas waxa weeye walaalayaal waa tahniyadii dadka kaleeto oo dhan ay lahaayeen waxaan tahniyadeynayaa ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay maanta inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan markaa aan ka leeyahay walaal waan ku tahniyadeynaynaa waan ku ducaynaynaa waan ku garab joognaa waxaan filaynaa wixii laga soo arkay bilihii yaraa ee ra'iisul wasaaraha ahayd in laga arko
mar labaad adigoo madaxweyne ah mashaakilka ku hor yuurara ee fara badanna inaad ilaahay u tala saaratid shacbigaaga soomaaliyeedna aad tala saaratid soomaalidana aad ku hogaamisid cadaalad iyo horumar taas oo soo celi doonta sharaftii ay ku lahayd soomaalidu baashka taariikhda gaar ahaan dunidii aanu soo dhaafnay min 60kii ilaa 90nadii aad dib ugu soo celin kartid isla markaasina aad kartid inaad soo celin kartid mar labaad in Soomaaliya ay ku soo noqoto maxaafisha dawliga iyadoo aan sadaqaysanayn iyadoo baryootamayn iyadoo ooyeyn iyadoo taahayn iyadoo dhibaato ka sheekeynin iyadoo raaboorada iyo taqaariirta adduunyadu ayna ka sheekeynin inay tahay Soomaaliya wadanka ugu fasaad badan Soomaaliya wadanka ugu gaajo badan Soomaaliya wadanka ugu maxay badan laakiin laga sheekeeyo Soomaaliya inay kobac siyaasadeed kobac dhaqaale iyo kobac bulshada inay samayso 4 sano ee soo socotay wixii ka dambeeya oo wixii la soo dhisay adiguna aad halka ka sii qaadid oo sii qurxisay sidii lagu yaqaanay iyaan ku rajeenayaa walaalayaal arinta dhacday ee Muqdisho ka dhacday maanta maxay ahayd amba haddii aad idinku joogtiin shalay oo inay tahay arinta shalay toole Muqdisho ka dhacday maxay ahayd anigu waxaan oran karaa 5 arrimood baan ka soo saari karnaa waa marka ugu horeysa arinta Soomaaliya ka dhacday Muqdisho ka dhacday waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd tawrad amba revolution isbedel siyaasadeed oo la xal loo radikaali ay ahayd maxay ku ahayd isbedel siyaasadeed oo halis ah laba jaanib baan iska taageynaa in badan bay u baahan tahay inaan qiraa'o ku sameeyno waxaan ka soo qori doonaa arinta koobaad waxa weeyaan walaalayaal waxay isbedel ka ahayd dhinaca Soomaaliya oo u samaysan system reereed in ay ka soo guurayaan bulshadu ay ka soo bislaanayaan oo ay doorteen nin deegaankiisu reer Muqdisho dadkiisu aynan ahayn iyo hareerihiga oo ay doortaan nin ka baxsan caasimadda Muqdisho inuu madaxweyne noqdo waxbay ka jawaabaysaa taasi arinta labaad waxay ka jawaabaysaa nin la qaraabo ah madaxweynihii hore ee dadku ay ku kaceen Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya xukumayay nin ka agdhow reerkiisa iyo qaraabadiisa in la doorto oo la yiraahdo war waxaasi waxa weeyaan tilka ummatun qad khalat taasi waxay ahayd ummad dhamaatay 30 sano ka soo wareegtay laha ma kasabat wixii ay qabteen way qabteen walakum ma kasabtum inukuna waxad qabanaysiin ma la weydiinaya wala tusaluna amma kanu ya'malun wixii ay qabteen dambi ahaan lima weydiinayo ilaahay buu hortaagan yahay taariikhdiisu ummaday hortaagan tahay jaamicaadka iyo iskuulada lagu dhigan doonaa xiqbada Maxamed Siyaad Barre oo soo maamulay Soomaaliya waa laga faa'iideysan doonaa experience kaas muxuu ku wanaagsanaa muxuu ku xumaa dhakeebu ku jabay dhakeebu wax ka qabtay muxuu horumar ka keenay muxuu dib dhac ka keenay waa wax cilmi u baahan oo la baari doono ninkii ka agdhow inay ummadda Soomaaliyeed inta ay soo toosto ay lugaha ku soo joogsato inay tiraahdo isaga ayaa maanta u qalma inuu Soomaali maamulo waa revolution weeyaan tawrad baa Soomaaliya magaalada Xamar maanta ka dhacday arinta koowaadi waa arinta weeyaan waxaan oran karaa waxa Muqdisho ka dhacay maanta ma aha wax caadi ah doorasho ma ahayn waxay ahayd in la aqbalay iraadada rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed taas baa ahayd inay baarlamaankuna yeeleen marka arinta koowaadi waa arinta weeyaan arinta labaad ee muhiimka ah waxa weeye walaalayaal in la isla taagan rabta magaalada Xamar waxa ka dhacay caawa si cafawi ah waxa magaaladii oo dhan baa dibadda u soo baxday baabuuradii baa wada dhaqaaqay dadku waxay dareemeen neefsi way neefsadeen dadku waxay dareemeen farxad wali ma aan arag wadan sidan oo kaleeto ay uga dhacday doorasho min markii laga soo bilaabo carta ilaa maanta oo ummaddu iyadoo oonan la ururin laga dambeyn la soo saarin iska soo baxday waxay taasi ku tusaysaa inay dadku doonayaan isbedel inay doonayaan taqyiirkuna waa muhiim wixii marka carta laga soo bilaabo ilaa iyo sheekh maartay Xasan Sheekh waxaan oran karnaa waxay istimraariya wax uun baa socday isku eeg waa la kubcay waa la kordhayay magaaladu way soo nabadoobaysay dadku way soo laamayeen noloshu way bilaameysay laakiin isbedel ma dhacay istimraariya ahayd tatawurna u jira evolution u jira laakiin dadku waxay rabeen inuu dhaco evolution ma ahna revolution inuu dhaco marka tajdiid inuu dhaco reform politique waxa dhacdo ina siyaasiyiin la isbedelay dadku rabeen arintaas waxa ka jawaabay bixitaanka magaalada Muqdisho farxadda magaalada Muqdisho
oohinta magaalada muqdisho oo dhinaca kale kaa tusaysa inay dadku diyaar u yihiin qof aan reer la ahayn inuu xukumo dadka ayaa reerka maaragtay ku hoos dhuumanaya siyaasiyiinta iyo aqoon-yahankee ummadda soomaaliyeed waxay doonaysaa inay noolaato inay dadka kale u ekaato marka arrintaasina waa arrin muhiima soo bixitaanka magaalada xamar ka dhacday qayladaa dhacday banaanbaxaa dhacay wuxuu ahaa revolution buu ahaa marka taasina waa arrinta labaad ee anina isla taagan u baahan arrinta saddexaad waxaan oran karnaa waxaa fashilmay wixii loo yaqaanay maalka siyaasiga ah lacagtii siyaasiga ahayd ee dadka lagu kala gadanayay way fashilantay lacagta haddii xitaa la qaatayna waa la qaatay laakiin macno ma sameyn lacagtii nin inta badan lacag bixin inta badanna dad ay daba joogin oo taariikh wata caqli wanaagsan wata dhaqan wanaagsan wata fikir wanaagsan wata ayay ummaddu dooratay oo aanan ku daba dhuumanayn urur aanan ku daba dhuumanayn reer aanan ku daba dhuumanayn tujaar aanan ku daba dhuumanayn dowlado marka arrintaasina waa arrin muhiim halkaa waxaa ku fashilmay waxa loo yaqaano almaal asiyaasi ama maalka siyaasadda iyaa ku fashilmay soomaalidu way dhaaftay marxaladii maal siyaasiya loogu sameynayay madaxweyne iyo iyada halkaa ka muuqata arrinta afraad ee muhiimka ah waxa weeyaan waxay soomaalidu fashiliyeen faragelintii dibadeed ee siyaasadda gudaha lagu hayay wadanada jaarka ah wadanada aan jaarka la ahayn ee ka fogee ee islaam iyo carab sheegta kuwa islaam iyo carab sheegta kasii fogee internationalka ah faragelintii siyaasadeed ay ku hayeen waxa weeyaan dadka soomaaliyeed way garab mareen waxay yidhaahdeen waxaan dooranaynaa qof xamar laga wato gobolada dhexe laga wato soomaaliya oo dhan laga wato gudo iyo dibadbaba dadku marka aad dhegaysanaysay social maaragtay aad ku dhex jirtid maaragtay bulshada aad ku dhex jirtid ee meesha laga wada xidhiidh aad ku dhex jirtid waxaad arkaysay in ummaddu formaajo ay u baahnaayeen sida qof haraadan oo biyo u baahan marka taasi iyay ka jawaabeen kama ayna jawaabin faragelintii siyaasadeed ee dibadda kaga socotay arrinta afraad ee fashilantayna waa arrintaa weeye arrinta shanaad ee fashilantay waxa weeyaan qofka ay daba joogaan afar qolo unbaa guusha keena iyaa soomaaliya la aaminsanaa qofka ay daba joogaan wadaado kooxday doon ay ahaadaan amba maaragtay dhiig cusub ama dhiig hore ahaadaan amba ahaadaan maaragtay wadaado magacu doonisita ahaado amba waxaa najaxa qof ay daba joogaan dad loo yaqaano maalqabeeno amba waxaa najaxa qof ay daba joogaan dowladaha dibaddu ee jaarku amba waxaa najaxa qof ay daba joogaan qabiiladu oo reeruhu ay wataan formaajo waxaa watay ummadda soomaaliyeed reer walba way wateen marka taasina waxay fashilisay fikraddii dhahaysay formaajo waxaa wata maxay ma jirto raggii la kala watay dariiqu kaga yimiday ummadda soomaaliyeed ninkii ay wateen iyo halka hore yimiday arrintaasi markaa shantaa meelood waa dalaalaad waxay ku tusaysaa soomaaliya maxaa ka dhacay revolution baa ka dhacay waxaa ka dhacay barwaaqa ka dhacday waxaa ka dhacday bisayl siyaasi baa ka dhacay waxaa ka dhacay horumar baa ka dhacay iyo kobac ugu dambayntii waxaan jeclahay inaan 3 kelmadood aan u jeediyo walaalkay formaajo iyo dadka soomaaliyeed oo horta marka hore waxaan la hadli lahaa madaxweynaha cusub ee ummadda soomaaliyeed maanta ay ku doorteen magaalada muqdisho ama shalay ay doorteen mudane madaxweyne formaajo nilmo ayaa iga soo yaacday markii lagu doortay mid kale iga soo yaacday markii uu hadlay xasan sheekh uu kaaga tanaasulay mid saddexaad baa iga soo yaacday markii aad tiri anigu dadka isbedel doonka guulba u soo yatay mid afraad baa iga soo yaacday markii aan maqlay haweeney leh sujuuda shukri baan ku sujuuday magaalo dibadda ku taalo waddan dibadda ku yaala markii shanaad waxaa iga soo yaacday ilmo kaloo aada u khadhaadh marka arkay magaaladii muqdisho oo wada sare joogsatay anugu waxaan ahay dadka jecel revolutionka evolutionka iyo dadka cusub dhiiga cusub nolosha in lagu soo kordhiyo taariikh fiican baad leedahay ummadda soomaaliyeed saas bay ku daba joogsatay maxaa markaa aan kaa rabaa walaalkayo waxaan kaa rabaa inaad xambaartid fikirka ummadda soomaaliyeed ay ku xambaarsiisay waa fikir culus weeyaan soomaalidu waxay kaa dalbaysaa inaad noqotid nin soomaaliyeed soomaalidu waxay kaa dalbaysaa inaad noqotid nin nadiifa saad nadiif u tahay soomaalidu waxay kaa dalbaysaa inay kaa dhex aragto hogaannimo siyaasadeed hogaannimo maamul hogaannimo raganimo hogaannimo sharaf leh hogaannimadaas oo dhan bay doonaysaa inay soo ka dhex aragto waxaan jeclaan lahaa inaad adiguna soomaalida u ballaadhatid qof kasti oo soomaaliyana aad noqotid waa midda koowaad taasina xaq baa waan kaa dhex arkaynaa arrinta labaad ee muhiimka ku oran lahaa walaalkay formaajo madaxweynaha soomaaliyeed waxa weeye dhibaatooyin fara badan baa ku hor yuuraraa dhibaatooyinka waxaa ugu culus waxa weeyaan
الدولة العميقة وحلو يقانو قفكم مركو كلي يماد الدولة علص وحا كسي هريي تصي سميسمي أو ميل والبا قعنتا كودغين أو هايستا أو كودغي دونا وحيالوين فرابادان شبك كودالين دونا قد حبادان بالغو دالين دونا ميل والبا وحبا كو أولي دونا waxay kaaga baahnaan doontaa laba arrimood inaad la imatid mudane madaxweyne arinta koowaad waxa weeye xikmad siyaasadeed arinta labaadna geesinimo siyaasadeed labada shay qofku hadduu isku darsado uu guuleystaa dadka qaarkood waa geesiyaal laakiin xikmadda ka maqan dadka qaarkoodna xikmad bay hayaan laakiin geesinimo ka maqan waxaan ka rabaa walaalkay inaad isu keentid Soomaalidu meesha socoto waad aragtaa xikmad xinkad iyo inaad yeelatid geesinimo arrintaasi waa arrinta aan ka codsanayo mudane madaxweyne Soomaalida waxa ka maqan gudaha in la walaaleeyo waxa ka maqan waxa dhacday heshiis maaha in qabaa'isha la walaaleeyo aqdi ijtimaaciya Soomaalida ka maqan waxa loo yaqaan social contract inay dadku heshiiyaan ay ku heshiiyaan mabaadi marka Soomaalidu marxaladda dadaal waa inaad gelisid in heshiis Soomaaliyeed uu mar labaad curto uu ka dhaco dhulka ummadda Soomaalidu ay dawladeeda ku dhex leedahay marka arintaasi waa arimaha ku noqonaya priority-ga ee maaragtay inay awlaweed ku ahaadaan ay halka hore ku yaalaan aan ka codsanayo ilaahayna ku garab galo ummadda Soomaaliyeed ee u sare joogsatay mudane Farmaajo waxa laba shay baa muhiim ah inaad la garab joogsataan Farmaajo waa marka koobaad in aad la garab joogsataan inaad noqotaan dad Soomaaliyeed oo maanta helay ninkay doonayeen hadday fursadda niga xumaato fursada dambe oo soo mari doono way adkaan doonaan Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad Soomaaliya waxay u baahan tahay deganaansho Soomaaliya waxay u baahan tahay dawlad inay hesho dawlad si ay hesho deganaan u hesho waxaan u baahanahay ninka aad doorateen ee daba joogsateen inaad noqotaan dad la shaqeeya oo kula shaqeeya cadaalad iyo xurriyad iyo si shafaafiyada marka waa in la shaqeeyo weeyaan in loo dhigdhiga maaha oodo in loo dhigdhiga maahin qodaxyo iyo arrimo aad u farbadan arinta labaad ee nigu cusub lahaa ummadda Soomaaliyeed waxa weeye meel kastood adduunka ka joogtaan in taageerada moralka ah iyo materialka inta la isku daro la garab joogso taasi waxa weeyaan waa ummadda ugu dambeyntii waxa la hadli lahaa laba qolo waa culimada iyo aqoonyahanka culimada Soomaaliyeed meel kastood joogtaan waxa la rabaa inaad u noqotaan madaxweynahan imika la doortay inaad u noqotaan carabkii ummadda gaarsiinaya risaaladiisa Soomaaliya haddii ay taariikhda ku soo noqoto islaamka geeska Afrika wax badan baa u taraya Soomaaliya haddii taariikhda ku soo noqoto horumarka ummadda Soomaaliyeed baa bilaabmaya Soomaaliya Afrikana dambe u tahay Arabna dambe u tahay adduunkana dambe u tahay marka dantaas waxa ka shaqeyn doona culimada islaamka ee dad bislaaday saan imika u arko dhalinyarnimadii soo dhaafay iyo istirarkii soo dhaafay kala joojoogi soo dhaafay waxa kale oo inay garab joogsadaan loo baahan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan adduunka meel kasta jooga halkan Canada dad aqoonyahan aan kula kulmay bil iyo bar ka hor magaalada Toronto oo diyaar u ah inay sameeyaan mashruuc Soomaaliyeed oo badbaado ah oo khaalif ah oo u tara ummadda Soomaalida markaasi dadkaasi oo kaleeto inay ka abuurmaan meel walbaba oo ay noqdaan elite-kii ninkan la garab joogsanaya maahan hadal la garab joogsanaya action iyo ficil marka qoladaasina kelmadaas ayaan ku oran lahaa idan walaalayaal waxa weeyaan caawa maanta waa maalin weyn maanta waa maalin farxad leh maanta waa maalin 10 u ah xataa wadanada jaarka ah Ethiopia haday noqoto Djibouti haday noqoto Kenya haday noqoto waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay tustay in uu yahay Soomaalidu sidii uu Xasan Sheekh uu ugala wareegay Shariifna u ictiraafay haddana maanta Xasan Sheekh waxa lagala wareegay maamulkii oo Farmaajo u dhiibay una ictiraafay in laga badiyay waa 10 ay bixinayaan dadka Soomaalidu oo ku tusaysa in ummadda Soomaalidu haddii heli lahayd deganaasho ay si kale u fikiri lahayd ummad kale ay noqon lahayd fursadaasina waxa abuuri doona Farmaajo wad mahadsantihiin meel kastoo joogtaan waxaan iga leeyahay noolaada ilaahi subxaanahu wa ta'ala shicibka Soomaaliyeed ha garab galo shacbiga reer Djibouti ha garab galo meel kasti oo ummadeenu ay joogto ha garab galo noolaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.